Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaantiin waa idin salaamayaa walaalaha ku xiran channelkayga horumarka haweenka. Insha Allah channelkan waa channel cusub oo loogu faa'iideynayo gabdhaha ama hooyooyinka guryaha jooga. Insha Allah saa ka arkaysaan magaciisana wuxuu ka hadli doonaa hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yiraahdo horumarka haweenka. Marka videogan hadduu kusoo gaaro walaal waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saarto, calaamadda subscribe-ka guduudan inaad taabatid, gambaleelkan aad furatid. Insha Allah nagu dhiirigeliya inaad subscribe taabataan, barnaamijkana sii share gareeyo sidoo dad badan oo badan u gaaro ka faa'iidaan. Insha Allah ta'ala maanta marka waxaan ka hadlaynaa barnaamijyo aad u muhiimsan ayaa idiin soo deeni doonaa insha Allah ta'ala oo maskax badan gashay oo waqti badan galay oo maxaa la dhahayeeto aad uga soo taxadarnay yani soo diyaarintiisa. Insha Allah idinkana waxaan idinka rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaad nagu sii dhiirigelisaan sidaan barnaamijyo aad uga fiican ay idiin soo deeno oo maxaa la dhahayeeto in wada anfacaayo. Maanta marka maxaan ka hadlaynaa waaye. Maanta waxaan ka hadlaynaa sidee naftaada ku horumarin kartaa. Gabarey ama hooyo sidee naftaada ku horumarin kartaa adigoo gurigaaga joogo oo ilmahaaga haysto oodan carruurtaada meel uga tagin, ilmahaaga og waxay ku nool yihiin, waxay cunayaan, haddana sidee horumar u gaari kartaa. Insha Allah barnaamijyada waa kala qadqaadi doonaa laakiin maanta maadaama barnaamijka ugu horeeyo uu yahay yani barnaamijkan aadka u qiimaha badan ayaan ka hadlaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynaynaa in aad u soo koobno insha Allah. Marka sidee naftaada ku horumarin kartaa maanta adduunkan aan maanta joogno sidiisaba adduunkan maanta aan joogno oon ku noolnahay yani horumarka lacaga badan ayaa lagu bixiyaa sidii qofka loo horumarin lahaa. Shirkado badan oo badan ayaana u furan la talinta dadka. Marka insha Allah ta'ala anaga barnaamijkaneeto waxyaabaha aan kaga hadlayno waxyaabahaas oo noqon doona barnaamijku waxaan ku soo koobay yani horumarka la gaarayo 7 qodob. Insha Allah midna waa uga hadli doonaa 7daas qodob gabarey haddii aad leedahay horumar waa gaari kartaa. yani 7daas qodob haddii aad samaysid adigana qofka dhageysanayaan la hadlaaya haddii 7daas qodob aad samaysid insha Allah waxaan rajaynayaa in aad horumarka aad rabtid iyo waxa hiigsanaysid aad degdeg ku gaari doonto hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yiraahdo. Ilaahayna nala garab galo mar walba qofka bini'aadamka waxa fiican dikriga Ilaahay iyo quraankiisa iyo waxaas inuu yani kow ka dhigo. Insha Allah 7da qodob ayaan qodob u soo qaadanaynaa. 7da qodob ee noloshaada aad ku horumarin karto. Number 1 go'aan qaadasho. haddii aad go'aan qaadan kartid waad gaari kartaa horumarka aad rabtid. Insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan waa ku gaaraysaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Go'aan inaad qaadatid muhiim waaye. nafsadaada waxyaabo badan oo cusri ah ku soo food saarayo, waxyaabo badan oo maxaa la dhahaa inaad fikirtid u baahan, waxyaabo badan oo iskaga kaal darsamayo sidaan ma yeeshaa is leedahay. Marka waa inaad go'aan aad qaadan kartid. haddii go'aan aad qaadatid bes first of all yani 7daas qodob ugu horeeya go'aanka marka step-ka ugu horeeya oo noloshaada ku horumarin lahayd ayaa cagta saartay go'aan hadda qaadatid. 2 number 2 sameyso hadaf aad ku horumarinayso nafsadaada ama noloshaada. marka aad go'aan ka qaadatid kadib aad tiraahdid waa inaan waxaas iyo waxaas aan sameeyaa waa marka labaad haddana inaad samaysatid hadaf aad ku horumarinaysid raali ahaada yani qeyle iyo waxba mashiin ayaa buuxaayo iska raali ahaada. Insha Allah inaad imaqlaysaan si fiican iyo baqlaysaan aan rajaynayaa. midda labaad inaad samaysatid hadaf aad ku horumarinayso noloshaada. midda saddexaad isku day inaad waqti siisid si aad u ogaan lahayd meelaha noloshaada ay u baahan tahay inaad horumariso. qodobka saddexaadna wuxuu ka hadlayaa waa inaad waqti siisid naftaada. waxaana rabaa yani dhaqso wax kuugu samaysmaayo ma leh. waa inaad maxaa la dhahayeeto naftaada aad waqti badan aad siisid si aad u ogaatid
maxaa la dhahaa meelaha noloshaada ee aad ugu baahan tahay inaad horumariso. iskuna day si aadna isku daydaa sidii aad u kala mudan yihiin oo kala horumarsanaad. Okay, marka midda saddexaad waxaa waaye waqti inaad siisid wixii aad samayn lahayd waa inaad waqti aad siisaa. yacni waxaana u baahanahay daqiiqad ha igu samaado ama ay igu hagaago wax la dhaha adduunka ma jiro. waqti si haddaa markan aad samayn weysid mar labaad isku day, haddii ku hurgeli weysid mar saddexaad isku day. Okay, markaas miraha aad rabtid waa guran kartaa. laakiin haddaa markiiba hore iska dhiibaysid oo yacni wax markaa samaysid oo kale wixii saa rabta ku noqon waayaan adina markiiba niyad jabaysid oo maxaa la dhahaa wixii meesha uga dhaqaajinaysid, qof horumar gaari kara ma tihid. waa inaa marka adkaysi yeelataa oo waqti fiicanna aad siisaa si aa horumarka aad rabtid aad ku gaartid. qodobka afraad waa inaad raadisaa wax naftaada ama dadka kale oo faa'iido u leh. Okay, waxaan rabaa inaan wax sameeyo yacni wax bilaa macni ah ama yacni sumcadaadoo kale hoos u dhigaayo ama dadka aan faa'iido u lahayn inaa waqti badan iskaga lumisid ma fiicno. insha allah waxaan rajeynayaa inaad fahamteen qodobka afraad waa inaad raadisaa wax naftaada iyo dadka kale oo faa'iido u leh. Okay, 5 si lagu dhageysto adiga noqo qof si fiican wax u dhageysto. muhiimadda waxaa waaye in yacni aad wax dhageysatid. qofku markuu wax dhageysto wax badan ayuu ogaanayaa. marka waa inaad wax dhageysataa adiga si lagu dhageysto waa inaan wax dhageystaa. ma fahamtay? marka waa inaad dhageysataa dadka qofkii kaa weyn oo kale, qofkii aad tala ka helay sidoo kale maxaa la dhahayeeto adiga waxyaabo badan dhageysadka aad uu muhiim u yahay. marka adiga si lagu dhageysto waxaa sheegaysid waa inaa marka hore adiga wax dhageysataa. qodobka 6 ha u arkin dhibaato aragtiyaha kala duwan ee dadka kaaga imaanayo. waxbaa step baan cagta saaray, stepka aan samaynayo yacni dad badan aan isku ra'yi ahayn aa kusoo wada maxaa la dhahaa kusoo weerarayo ku dhahayo waxaan ma fiicno waxaan sidan waaye. yacni ra'yaasha kala duwan